waa tahay dhegaystayaal bal markana sheeko cajiiba bisad rabaayad u ahayd qoys Soomaaliyeed oo ku nool magaalada tan London ayaa ku dhimatay shil baabuur kadibna ciidamada booliiska ayaa la soo xiriiray qoyska Soomaalida oo u sheegay waxa ku dhacay bisadoodii aadan warsame buryar oo hadda stuudiyaha la fadhiya ayaa qoyskaasi aaba u ah aadan in waxaan jeclahay marka hore inaan ku weydiiyo sheekadan la yaab kale intaan aaskii bisada iyo wixii dhacay u gudagelin horta booliisku maxay idinku yiraahdeen markii ay idinla soo xiriireen farxan waa maadsan tahay waa runtahay waa qiso cajaa'ib la weeyaan oo markaad waxaa jirtay erey Soomaali oo oranaya nin adduunka joogo maxaa aragtay ku laaban waxyaabo waxaa jira aadan filaynin inay kaaga hor yimaadaan adduunyada tan khaasan beeda markaa si fiican u fahamtay booliisku wayna soo waceen habeenkii axadda ahayd goortii aan seexanay adigu 12 iyo barkii ayaa telefoonka qayladiisu mataqaana demi weysay markii hore waan ignore garaynay oo ma aanan qabanin markii horeeto goor dambe markii telefoonka uu istaagi waayay ayaanu qabanay wuxuuna ahaa nin booliisa marka wuxuu nagu yiri reerka magacaas lama tihiin oo bisadaas maxaan ku rahdaa markii hore markuu telefoonkan ka qabanay si degan oo qof mataqaana ka walwalsan dareenkaaga oo kaleeto ayuu yiri waxaan ka xumahay inaan akhbaar xun idiin soo gudbiyo reerkaas oo naxdin lahaa reerkaas oo matidin ha bisada magacaas la idinku ma lahaydeen ha bisadiina shil baabuur bay gashay isbitaalkaas xoolaha baanu nageynay la xiriira wax yar kadib intaan nus saaca kadibna waxaana soo wacay isbitaalka laftigiisii baana soo wacay sidii oo kaleeto iyaguna aad moodid inay dareen maxaan ku idhaahdaa walwal ah muujinayaan oo ay kaaga tacsiyeynayaan waan gartay wax su'aasha markay isweydiinta mudan waxa weeye bisadiini baa shil gashay booliiskii iyo isbitaalkii baa idinka soo wacay sidee lagu ogaaday waxa weeye waxa lagu ogaaday wadanka kan bisadaha iyo eyda waxaa ku jira chip ama badhan maxaan ku radaa korontaha ayaa ku jira oo ay ku qoran yihiin magaceeda taariikhda nololeedkeeda oo dhan caafimaadkii ay qaadatay dhakhaatiir talaalada ay qaadatay iyo magaca qofka iskale iyo adresskiisa iyo telefonkiisa marka bisadaha iyo eeyada wadanka kan joogo dhan dhaqanka waxaa jira waa inaad diiwaan gelisaa diiwaangelintaas ayaa waxaa la gelinayaa badhan baa la gelinayaa oo chip ah oo macluumaadkaas oo dhan ku jiro iskaan bay marinayaan marka isbitaalka la geeyo iskaan marinaya maxaa bisadii marka maxaa ku dhacay bisadii sidaan marka dambe ogaanay naag dariskayaga oo naga dheerayn bisadu waad ogtahayoo way iska baxaan wuxuu leeyahay albaab asaga u gaaraho oo badhankaas korontada ah ka furo uu kuna soo galo oo furo oo kaleeta ah oo kuna baxo kuna soo galo marka habeenkii wuu baxay markuu casheeyey buu baxaa wuu soo noqdaa adigu waa bisado marna way baxaysaa marna way soo noqonaysaa naag baa ku dhacday gaari baa ku dhacay booliisku siday wax u dhaceen nooma aysan sheeginin laakiin reer kale oo dariskayaga oo Soomaaliya waxay noo sheegeen inay la soo istaageen markii shilku dhacay naagtuna waxay tiri bisada iyadoo ordaysa unbay maxaan ku soo hoos gashay saas ku dhimatay way dhimatay magaceeda marka magaceeda Mayla leeyahay gabadhan dhalay baa bisada iska lahayd oo Mayla u bixisay laakiin arrinta cajaa'ib kale waxay ahayd isbitaalkii markuu nala soo xiriiray ayuu wuxuu ahaan ku nirideed bisada hadday dhimatay wuxuu yiri ma imaanaysaano waxaa la rabaa inaad bisadii inay tahay in kale tiini inay tahay in kaleeto inaad la kala ogaado waxaanuna ku niride haddiiba aad ka akhrideenba macluumaadkeedii jibka waa iyadii dee iska tuuro meelaha baktiga la geeye markaasay sheekada weynu bilaabatay haye maxaa dhacay markaas waxaana la yiri maya arrintu saas ma aha sideedabana wax weeyaan wadanka kan intaan ku noolaa muddo dheer isma lahayn waxyaabo kaa qarsoon baa jira war maya iska tuur ma jiree waxaana la yiri iska tuur ma jiree bisada waa inaad noo timaadiin waa la duugahayaa layskama tuuro xoolaha baktiya halka kan marka habkii loo duugi lahaa iyo noocyada kale qorshihii iyo noocyada kala gedisan oo loo duugo baan kala tahay haddii kaleeto annaga duugayno lacagtana waan soo dalacayna marka bisadii aas baa loo sameeyey bisadii waxayna dhahaan saddex waxaad leedihiin maxaan ku idhahdaa saddex baad kala dooran kartaan saddexdii bal noo sharax si kooban iyo wixii aad ugu dambayn go'aankaad qaadateen farxaan saddexda fursadoodana kala siiyey waxay ahaayeen oo la idiin bannaan yihiin in qabuuraha xayawaanka lagu xabaalo in la gubo oo labaduba kharash mataqaanaa ku kacahaya qofka iskale bisaduna uu bixinayo oo anaga iyo tan saddexaad oo ay dhaheen haddaad intaa midna yeelaynin dabcantan gubitaanka lama ogola diiniyin lama ogola waxay ahayd in haddaad leedihiin dhul gurigiinu hadduu leeyahay jardiino ama beer inaad ku xabaalatiin taasaanu mataqaana qaadanay
laakiin dhibtu waxay ka timid carruurtii baa diiday tiina waxay tiri ma doonayna in meesha noloo ku xabaalo waa ka naxaynaayo markaas waxay ugu qaadatay asbuuc dhan in bisadii ay qaboojiyaha meydka la geliyo igu jirto oo intaan carruurtii mataqaanaa bal aan sasabayey oo ay mataqaanaa iska bedelayeen aan maxaan ku idhaahdaa asbuuc dhan igu qaadatay ugu dambayntii carruurtii markii aan ka dhaadhiciyo aan ku iri xayawaan ma gubayno de lacag intaan leegna inaan ku bixino bisada duugaya lacagta marka midna waa 500 iyo midna 500 bay ka bilaabanaysaa midda xayawaanku waxay qabuuro gaar ah u duugo waxay ku leeyihiin xataa waxaa lagu xirayaa madaxii dhagaxii magacaa wixii baa lagu xirayaa wixii baa lagu qoraya oo lacag badan midda kalena tan kale waa 200 oo geniyo waa la gubayaa dambas baa laga dhigaya dambas baa laga dhigaya taa laftigeedii waxay ku leeyihiin dadkan moogtahay galada waa nooc taasaa laba qaybeed oo mid xayawaan badan baa la isla gubaya midna keligeed baa lagu gubaya haddaad rabtid in keligeed lagu gubo oo lacag zaa'id ku daraysaa marka intaa markaanu samaynay waxaan soo gatay qalabkii wax lagu qodayey godkii baan u qoday waan xabaalay marka waxaa la yaab leh laba nin baa wuxuu yidhi laba kalaba is saarayo laba tawogo isma saarin bisad baad qabuur u qodaysaayo weligay iguma soo dhicin waad xabaali doontaa waa arrimaha mataqaana la yaab kale farxaano waxaa taa kaloo ka darnayd subaxii markii habeenkii naloo sheegay in bisadii ay dhimatay oo nala yiri subaxii waa inaad timaadeen isbitaalka ayaan shaqadii baan wacay habeenkii axadda weyna isniintii shaqaa layga rabaa mayd baana yaalla horey baan waxaan u ogaa qolyaan isla shaqayno eya lahaayo caddaanaho eygu maruu ka dhintay fasax mataqaanaa la siiyey loo tacsiyeeyo marka balaashar ma iga haysanin culays waan dareemayey markaan la hadlayo waxaa la yidhaha waa lai tacsiyey waxaa la waanu ka xunahay in bisadii kaa dhimatay oo dee mataqaanaa tacsi aad ku jirtid marka tacsidaas aad soo gudatid oo ay mataqaanaa dareenkaaga iyo soo dego markaa shaqadaada imuu mataqaana waaba lagu tacsiyey waaba lai tacsiyey halkan waxaan u jeedaa kaarar badan oo hadda midkanan gacanta ku hayo ay kuu soo qoreen dad badan oo tacsi ay kugu soo qoreen hadda kaarkan oo kale waxaa leeyahay miss cabdi waxaad naga aqbashaa tacsidii af ingiriis bay ku qoran tahay mayla mukulaashi baa lagaaga tacsiyeynaya waxaa kaloo jira iyaguna tagsiyada qaarkood hadda kaarka kanu xaaskayga ku socotay runtii oo waxaa usoo diray qolyihii marka hore meeshaan bisada ka soo qaadanay maxaan ku idhaahdaa marka inaad u sheegtaayo inay bisadii dhimatay oo ay faylka ka saaraan waxa u geliyaan marka qoladii baa kaarkaa soo dirtay laakiinse dad kaleto asxaaba ama wada shaqayno ama kuwa deriska xataa ajaaniibahoo mataqaanaa afrikaan iyo caddaana gurigayba noogu yimaadeen booqasho oo tacsiyeyn bay noogu yimaadeen marka arrintaas waxay ku tusaysaa ma ahan oo keliya dadkan oo dhanu inay bisadii ka waloolsan yihiin waa dareen bini'aadnimo ay ku tusayaan adiga yani waxaad ka wadaa waxaa laga baran karo arrintan waxaa laga baran karaa waa mida horta intaas waxaa naloo marinaya xuquuqda xayawaanka ilaalinteeda waxaa jira sharciga waddankan ka jira oo haddii gaari adoo wata aad ey ku dhacdid aad dishid ama u dhaawac noqdo waa inaadan meesha ka dhaqaaqanin ilaa booliiska aad u yeersido u yimaado bisaduhu kuma jiraan meeshii aanu meydka ka soo qaadnay bisada baktigeeda ka soo qaadnay warqadayna si ay leeyihiin fadlan waxaan ugu jirnaa dadaal in sharciga bisadahana sharcigaa lagu dabaqee saxiixa waraaqaha saxiixoo noo soo celiyo dacwaddaa nala gala marka waxay ku tusaysaa horta xayawaanka loo naxariisto iyo qofka maxaan ku idhaha dadka asagana dadka noo tacsiyeynaya inta badan waxay iyagu u yeelayaan bini'aadninimo oo mataqaanaa adiga ay ku naxariisanayaan marka diintuna way qoraysaa way sheegaysaa in xayawaankana la tixgeliyo marka waa arrin cashar bay ku ahayd soomaaliya haddaad joogi lahayd xaalka sidaa ma ahaatee cashar weyn bay ii ahayd may waa laga yaabaa dadka dhegaysanaya inay qaar la yaaban yihiin laakiin wax dhaca weeye marka cimrigaaga sheekadii ahayd camal cimrigaaga oo raaga geel dhalinyar waa ku tusaa marka waa tii oo kaleeto farxaano mukulaal aas loo samaynaya laakiin dadka halkan jooga ama yurub jooga ama maraykanka ingiriiska joogana waa inay ka bartaan oo waxaasaa u sugaysay ay ku talagalaan iyaguna aad iyo aad baad umahadsan tahay aadan warsame buryar idaacaddiina inta ayaan ku soo gabagabaynaya maxamed maxamuud cadde ayaa soo saaray mar kale ayaan idinkaga mahad celinaya wakhtigiinna waa farxaan maxamed jimcaale oo idinkaga tegaya ismaqal dambe oo xiise leh